يا كلوني ثم مرق دقاقي شبابتي قال دبي شوكولات المودي سلطه قبويه شكل مدب كله مركاسي تركوا هذا حق تبوك تلنا روح بدن markii dambe aad moodi in la soo maray ruuxko bukaatiday ballanbaad ku dheeldheeshay gabdhaha yaa ballanta uga wada baxay waan jaabay asxaabta abwaan Bashir Cabdi Yuusuf ana la jooga soo dhawaada barnaamijkan awal waxaad kala socoteen channel-adeena Madaal Official iyo Ansel TV waan soo dhaweynaya barnaamij aad qurux badan man caawa idin wadna ko waxaan ku soo dhaweynaya maadaama abwaanku martino yahay caawa noogu cusub yahay abaan soo dhawo marka hore aad baad mahadsan tahay Anzali waan dhawahay dhamaan daawadayaashan waan soo dhaweynaya Madaal sidoo kale waan soo dhaweynaya waa sax waa qumanaheeni waa barnaamijkeeni aan nooga barateen aniga Ansel iyo abwaan Bashir oo nagu soo biiray abwaan soo dhawow waxaad ku soo dhawaataa Madaal Official iyo Ansel TV labadaba abwaanka in badan baad ka daawan doontaa waana arki doontaan in laga waayi doono ma xarunta hadda aan fadhino anagu de aad baan idin salaamayna aad baan idin jecelahay anaga aad baan ugu badbadanay de maadaama wax badan baan soo wadnaa waliba dad badan baan soo wadnaa dadkan intaasan u sheegaya hay Ansel وهجاج عاد بعد ما سنتهاي إن أبوان كعاون وجوجا إنه وحياة بدن بنك هاللي دونا يسجل في تجيسو في نها يا برامج شوحي صبدان يوليبا ده أبوان مدي ساعة وحكوا قاعدين على لفت كده إن مدالو ولا اللي تدكي تيك توك بالغفرة لو ريتبون كنا ده هشان كور حياة ما حكي كده وهذا اللي جويس مع إنه تيك توك واحد تدخل حاجة أنا تيك توك وفراي كده من سيدي مين ونسكو أحكين تيك توك تعرفوا وفراي تيك توك ما يفرطي أرتو هذا اللي جويسي كمل لقيني بحال بعد ugu tuurtay webi baa ila tagay habeenkii habeen hore ahaa xalay midna hurdo maanan helin saan walaaqahay waan ka salgaari waa TikTok god dheer oo gabdha qurqurux badan midba midku ilow ah midku ilow ah saan u dhex qaadahay oo dhex mushaaxay horta waagi baa igu bariyo sheekhi baa igu aadimay horta halka waad igu lugayso meel laga xiriiro haweenkii ma lahayn oo maada dhin halkaas laga xiriiraa meesha de TikTok Facebook moogtahay wuxuu leeyahay meel friendsku ay kaaga soo darsadaan meel messengerka dadka aad kala hadashid meel aad arkaysid wax badan oo wax lagu soo diray meel laga soo hadlay iyo waxba imaada jiray meeqad wax u qortay wax leeda meesha oo xageen wax ka qor ceel uun dadkii dhex yaacayaan un baan saaraha sansa ula saan mid uun daadaawan ma mid kale maxaa kuugu la yaabanaan maxay tahay naxdin baa la seexan waa markii dambe intii yareeyay waa markii sheekh aadibeen aad seexatin horta hurdo maan helno waxaan wareer badan baan meesha ugu tagay gabadhii baad ku riyood de maxaan sameeyay waxaan u tagay gabdho qurqurux badan oo markii dambe aad moodi in la soo maray ruuxko bukaatiday ballanbaad ku dheeldheeshay gabdhaha yaa ballanta uga wada baxay waan jaabay gabdhaha yaa ballanta uga baxay midba mid ay ka qurux badnayd oo heestaas u daarantaan u tagay tangeedi waa heestii un baa u daaran ruuxko ballanbaad ku dheeldheeshay geed xidid baad muxuu ahaa waa laga sheegsibay heestii wixii muxuu ahaa ruuxko bukaad baad dhaaftay mi ahayd ballanbaad ku dheeldheeshay geed goysay markaan anigu aad marka heestii ugu fiirsaday gabdhahaas gabdha lagu daadiyay bay ila kaayeen dad lagu daadin karana ma ahayn meel aan kala hadlaan waayay alla qaad waad lu goysay halka aan kala hadlaad idii lahayd wala hadlaa dadkaas dadku waa la follow garay wax ma follow garay sarto xageen ka follow gareeyay waa kana wixii waan walaaqa xageen geey mobilki waa kana waan walaaqay bahalka waxba waad lu goysay daraade meesha soo halkaas soo maaha halkaas soo maartid saan baan u gadiyaa anigu saan baan u gadiyaa nin baa ku soo baxay nin baa soo baxay oo kalku waxan baa soo baxay ilmo marka dambe waxan baan u galay mashaqa uma dhaqaaday markii dambe gaala qaaqaawan baan xataa u tagay nawaad lu goysay walaal waad lu god baad ugu riday way ila tagay ma dadkii waxay dhaheen ma sha Allah wiilku wax fiican baad u sameeyso TikTok baad furto TikTok waad ii furtay day hadda gabadha quruxda badan meel laga hadla male xageen kala hadla meeshan xagee wax ku qoran yihiin saan baan u gadiyaa meel laga hadla male soo galiyo xad la galama hado waxan baa la geliyaa alla de maxay hada ala alkooda muxuu yeetar ruuxko bukaatiday
galay ballanbaad ku dheeldheeshay heestaasaa ugu badnayd gabdhaha ugu qurquruxda badan heestaasaa u daarayd marka halka calool xumaan kala soo kulmaye adayba meesha saa un loo gediyahayo in wax kale lahayn adeer waa dhaantaa soo baxday dadka kuwan waxaan u malay waa dhaway dhaantada barteen madaxa kaliya ka dheerahayaan horta madaalo waad mahadsan tahay anigu waxaan isdhahayay ninkii madaalo ahaa tiktoktiibuu intuu saa u dhex galay buu xataa dad fiican ka keenay ma fahantay ninkan tiktok baa loo furo oo ku khafiifay aad baad mahadsan tahay anzalay waan dhawahay madaali waxay ahayd inuu noo sheegay tiktok meel ku dhamaado mal miya ma yalla wadaa ku dhamaado mala bashir waa daali waaga ku bari wallahi saad saa waraaqis baad gashid baan lahay gada ma halka u dhaafnaabo snapchat baan furanaynaa gashid baan snapchat ka dhamaan malaynaa waagay abaan maxaa saad waxa soo dhaweeyay aad baad mahadsan tahay anzalay waan dhawahay wax weydiin ma leeyahay anu caawa mooyee waxaan ba idin ku wada ma jiro wax weydiin ma leeyahay si kala hadaan u dhigo si kala hadaan asxaabta abwaanka u baro abwaanku waa aniga macalinkaygii xagga fanka iyo suugaanta waan kusoo jiri jiray fanka iyo suugaanta nin waxaan hay soo daaray waxba moogidi ha waayo abwaanku riwaayadii u horeysay baanu isla dhignay 2012 wax badan baanu soo joognay ragii maslaxa aanu dee ha ayuu ahaa abaan intaad ku dhex jirtay fanka iyo weliba maxay hayto horta ma abwaan baa tahay mise halabuur labada ay kala saarto hayaa horta anigu bashiir baan soo aqaanaa waxaa tahay dadka ku yaqaana dadka abwaan bashiir baan ka maqmaqlaa hal abuur bashiir wali ma maqlay saad gartay ya saabuur toona صح ha aan laakiin bashiir baan soo aqaanaa aad baad mahadsan tahay madaali sharaxaada far badan oo qaar jiri iyo qaar waa igu amaanayba marka goormeed adigu ogaatayna wax sameyn kartid oo aad soo gashay inaad يعني هرتو بل ماسوين أما هيسو أما محيط رواية أنت بتسمين كرت. والشيكة وديرو هذا كان شيكة فرق بدن وعيل يوم محن كوير هذا يعرق يوم فرق بدن يكون ترتوي وضاوضياش وقار حناق وقار شدبوني وقار وهجاج حل هراء الشيكة هذا دير تهاي وباهم تهاي وقت دير يولي بينا محيطه ها marka dhanka jacaylka rabnayna wax nooga sheegtay ninkana jacaylka caadi kiisadana ay warsama wasas azama misawasas wasidan waa musaasi ha waa isla meeshii jacaylka horta wax far badan baan ka idhi waxaas iigu daray kolku jacaylkaygii iyo af Soomaali xumadii jirtay ay iska hor yimaadeen is duqeeyeen gabar yar meelahan ku kortay oo aad u qurux badan yaan ka helay waxaan isiri maanta saad amaan ugu wado gabadhan hama tagto meeshaan gabadhii bartay oo kolkaan bartay baan maxaa isiri maxaad wax walba u qoori waayay kolba meel soo mar kolba meel erayadii yani gabadhii waxaad ku amaantay ha waxaan ku masaalan garan waayay wixii ugu qarsana marka af Soomaaligii saxda ahaa ee hore la isticmaali jiray baan eraya qaali ah ka soo raadiyay waxaan idhi ubaxo magooliya kaymaha mankooday dhibcamaya ka dhaay iyo malab xabag barshaade maleeli akal gacalka iyo xusuus meel ku waartay halka markaan marayo jeegu tiri abow maxaa waay maxaa ka wadaa صح شو شنيدان iyo anay ku qaniintaabay istiri oo halagtan lala ordahay daadkan biyaha baba laga carabo roobka laga galo guryahe daadkan kula tagay iyo maxay ninkan daadka god buu ku riday waaga balaayu kula dabacsan yahay istiri adigu waan xanaaqay madaxa yar xanuuna hadana waxaan isiri fahamtay gabadhi inay waxaan fahansaneen baa garanayno horta markii hore waan xanaaqay hadana waxaan isiri waa magaalo looma xanaaqay adaa khaldamay siiga yaraan maqlay gabadhu waxay taqaan ku amaan baan isir xaga kaleen karo waxaan abay ka raali noqo wixii hore aflagaadada ahayo waxa kugu qalmaan wax kugu qalmaan hadda ku wada soo daabalay waxaan chips iyo kalluun iyo jumbo maraq digaagay chapatiga la dubayo chocolate la moodi salaatada qabow iyo chicken midab kile markaas ay ku waadaysaa xaqta buugay la dhada كودي حرده ما سو غشي jacaylkagi af Soomaaliga markay iska hor yimid Soomaaligi aan anu jacaylkay ku gudbinay iyo gabadhu waxay taqaanay fahmaysay waxa chocolate iyo waxa qabqabowga numay iyo waxa la micid shinida kululayd
إربط كله وريجس إربط كله وريجس jalaatada iyo gabadha reer magaalooda qabo uu ku kortay warigeed malabna soo jabsanin surna arag shinkanaa aan qaniinin shinina aan arkin maxaan ku marka waxay tiri demeshi واتم برام برتيبة oo sabab boodiba maxaa hariba ku waadaysaa ku waday kalba diri مرة برام برقادة بوس كسر عدين أنت كيف بيجي قاعد يسمع halkaas kaga biyay ka dhiga ka imba u dhimanay والله يقول لك تعال كوادي بدي أنا قلت يدو والله بدن واجع على ونسكين ويني هبين والبوحنا نوام كتير أليه هاي كتير ما أنا كتير أليه مرة أنا قال ما كساي ayada ku dhaxaysa ها نوام كربا inaad adigu dhaxdan maleynay تما يدي بعد وان كتير أليه hay ya شاكر بردك الشاكين أب سومال قلت إنه لا ديري هاي بردين شيء مال ماشي أنا هو سومالو أي دكتور ayaa waxa tagay nin ka imaaday xagga Soomaalida oo badan tahay marka gabadh buu shukaansadaa meeshan uu ku cusub yahay gabadhi marka meelaha Soomaalidu badan tahay uu ka imaaday marka meel kale Soomaalidu degtana wuu tagay marka gabadhi uu rabaa habeen walba uu soo tursaa uu rabaa inuu raadinayaa ha gurigii markuu imaadana marka ridi soo istaagay wadina cambaroy markaas ay dhahay na yaa kula jooga markaas ay dhahay kelixi qolkii gadaal bay ka hadlaysaa moogtahay kelixey ninkan nin buu haystaa waana keligay bay leedahay gabadhi waa aniga keligay bay leedahay asagana kelixey wuxuu qaatay nin kale wuu iska tagaa nin kale xeelad hala soo islee waagii dambe masayr buu dhintay wuu isaga tagay magaaladii buu ka soo hayaamay marka Soomaalidu waa la dheere iyadoo waxa leedahay kaliya isagoo islee ninkan oo ka dhamaanan gabadha maxay kale xaygana fadhiya wuu baraadinayaa ninka magaaladu ka raadiyaaba wuxuu baleeyahay qoor goysid laakiin kelixey nin may hadar waa keligay bay ka wadaa gaagay waxay ka mid tahay taasi af Soomaaliga lahjada af Soomaaliga lahjada af Soomaaliga waa la dheere safixuno kii mahadqoonay ahaaba gaarigii ugu keenayo asagana de waqtiga loo dhoonka la gaaro ugu xarooday furi mu kaga tagay furi wuu iga tagay ka kaxaysade hada xaga socotaa gaarigan raacaya de maxaa ku dhacay lockdown waqtigii baan ugu gaaray wala saacad baan ugu dhacay Bashiiro so furi ma haystid furi waan hayaa ka kaxaysade marka gaariga ma wada yaqaanee ya adu gaariga ma wada taqaana maanugu ha ma horay mise gadaal horay de gaarigu dhinaca aad leed ma u jeedaa dhinacan aad u jeedaha ama ma naqaan horay yaana leexini de marka horay waan u kacay raqadaya yaana leexini warnu leexadna ma aqaano gadaal ma aqaano gadaal ma gaariga laakiin horay waan hore haduu waa iska wadi diidan baa lagu geeyaa diidan ma liiga horay ma dhaqaaji kara warkan uu iga dareemay fin fasla ma barin ma aqaano ma qoonay xilligan telefoonkiisu waa dansan yahay in adeerow madaalow asxaabtii markasto barnaamijkan ka hadlayno inaad caano u carartid in lockdown ka carartid miyay soconaysaan ansaley in adeer adduun hawle kama dhamaato adduun hawle kama dhamaato gaari aanan wadi aqoonin baa hoos ii yaala ninkii aan lahaa kuu wadana waa kana horay unbuu wadi karaa ma leexin karo gadaal uma wadi karo ما قداش هسا يقول ترى لحد كون اسكو دبي كرا ما اسكو دبي كرتا قدال لكن ما قدال حتى ان شام wax kale loo baahin gadaal loo noqdo kor ina wallahi taas waa dhibaat war kaga tagayna gaariga marka gaariga waan lugaynaa labadana waan ka lugaynaa waan iska lugaynaa asxaabta waxaan leenahay asxaabta nagu xidhan aad baan u salaamahayaa kuwa nagu xidhmi doona xataa waan salaamayaa naaheedha salaantay daraadna waan ayada sagaal nin baa soo wacdo magaalada nadi maxay u salaam weydee war dhamaantiin Soomaali meel aad joogtaan waan idin salaaminaa mar dambe aan ugu salaamin magaalo ma salaam magaalo gooni aan ugu salaamin barnaamijka soo gudbiyay laakiin waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekadii social media ee maanta mar aan ka hadalay gabadh waxaa jirta social media xoog u haysata oo Suudaaniisa marka inamadiiba saa wareejinay wax leeyin gabadhan waxa weeyaan lama arago lama maqal sidoo kale haddana waxa soo kordhay inaan Mareykan u dhashay oo 24 sano xariga lagu xukumay oo dilay gabadh yar iyo hooyadeed gaari jibsiyay hablihii iyo adduunka dhan baa ka hadlay oo waliba dumarka u badan waxay dhaheen ninkan uma qalmaba in xabsi la geeyo gabdhihii Soomaalida waxay dhaheen 7 nin oo Soomaaliya inta la xidho isaga la soo daayo ما محاتل واضح ولا لا أزور أنا تضبط Soomaaliya la xidhay dhaheen أنا أرنتها ما تضبط Soomaaliya عدان كبرامج كقلبتهم باب أنا جيبوه رئيسي نك عدان كقبلوه كذا بدعين وذلك gabdhaha waa taqdaayeen indhaha ku yaala markaa ka cadaan ku jiray gabdhuhu ka daba dhaceen laakiin ilaahay cadaan oo ma keen Afrika naagta Suudaan taana yarab ka daba dhacayna maxaa gabdhaha naagta laga daba dhacay uma baarag bas sawir ma kaysa leedahay Soomaalidu waa barqadharageey Allah ka soo reeb naga daay Suudaan tan la wareegaysa iyo gabadha Suudaan waxa maqli jiray waxa Suudaan ba wala gabadha Suudaan tan ku tusayaan yaho ma gabadha Suudaan tayd baad haysaaba ha
ما السودان سودتك من مدوبة أما أنا يسمي أنا جاي قبلها صومالي أنا كلا دليل أنا جاي قبلها أنا كلا دليل ناتن السودان ما هي وعرب شو وعرفت السودان ثم قايم عربي لهذا ورشوي بقومين كوة تبارضي والله وحلا دبق رويت هاي يا ورد بحط بقى مين يعني نقول لك قبلها أنا وما صعنا يا تضبط الحلا أنا نقول هنودرنا قبله ولا ليالو هنودرنا تضبط قبل السودان تانو وما صعنا نينكا قال كي قبله أي أمان هيانا تضبط اللي قبل دري ولا ليالو هنودرنا وما صعنا على بدنا أنا لقربه وهاجاج أنا أصحابته أنت سينكسو قاعد محنك أنا كيبل قال أنا هوري كوكو ودي كذا لكن يوديني وهذا اللي لقينا أنا كم ولا أنا كم ولا حرق قوي هذا برنامج كو حر له هي برنامج كان حر يا لقب الصماد الصماد وين حريا ذلك كان حرق بكون رادية ويا من حرقة الله يوقع حرق براش البحر وهاجاج أصحابته aad baad mahadsantihiin fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad channel-adeena soo booqataan Madaale iyo Ansel TV ba iyo Madaale official aad xagga nagala socotiin barnaamijyo kuwan ka xiiso badan baan idin soo wadnaa kuwa kale oo naga codsateen ayaga laftooda waan soo wadnaa aad baad mahadsantihiin barnaamijkana caawa waxaa idin socodsiinaysaa anigu Ansel Xuseen iyo anigoo Madaale oo Ansel ka dhicin يا أنا بشيرة iyo Bashiir abwaankeena dhamaantii waxaad